السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلامتي دمان خيارتكم كان كنال كينا برمانتا horta waan ka maqnay muddo toddobaad kanaalkan waxaa naga soo dhex gashay rabadaantii ciidii markaa waanu bilaabaneynaa fiidiyowadeedii taxanaanta ahaa ee ku saabsanaa ICT-ga iyo waxyaabaha kombiyuutarka ku saabsan aadna wax ka faa'iidi doonto. markaa maanta fiidiyowgeennani wuxuu ku saabsan yahay font. waa program yar oo ku jiraan kumanaan boqolaal font oo adiga ku anfici doona. marka app-kan haddaad u baahan tahay linkigiisa waxaan kugu reebay description-ka, halkaas ayaad kaga dhufan doontaa adigu ayar mid la soo degaysaa. app-kani horta waa boqolaal kumanaan malaayiin fonts ayaa ku jira oo ku anfici doona. app-kuna waa kasaa u eeg waynu soo keenayna. markaynu saa u soo kicino horta ugu horreyn laba option buu ku siinayaa, mid waa ka midna waa kaa kale. horta kaa kale wuxuu ka horanayaa enable font keyboard, u ogolow fontiskan inuu moobilkaaga ku shaqeeyo. saad ugu ogolaanaysaana click baad ku dhufanaysaa, kadibna saas markuu kuu soo saaro bartaa onta ayaad ofta ah baad on ka dhigaysaa. okay baad dhahaysaa, haddana okay baad dhahaysaa. kadibna saasuu imika optionkii labaad waynu hagaajinay oo waa kaa tigtaa inoo saaray. kadibna kaa kale ayaynu gudbaynaa oo ah switch fontiga daaraba. kadibna markaynu saa ugu dhufano saddex option buu kuu soo saarayaa. kaa imika kuu taagayahay waa Samsung keyboardkii asalka ahaa, imika fontiga kaa ugu sarreeya ayaynu ku dhufanaynaa. markaynu saa ugu dhufano waa kaa type something buu ku leeyahay. waxa bartaad ku qortaa shay imika waa kaa normal baa imika inoo taagan oo kuwa fontiskii maykon waa shibab waa qaabab. imika waa kaa baro maanta marba qaab bay noqonaysaa, marba qaab fontis bilaayiin fontis baa ku jira. misarhaan waxaynu ku qoraynaa imika kii hore waa kaa waa fontiska waa bilaayiin waa malaayiin lama soo koobi karo. dadka badankooda kaasi isticmaalaan kaga waan ku qoraynaa baro maanta title-kaba kaasaynu kusoo qoranaynaa maanta. waxaa ku jira isna mid kaloo buluugoo dadka badankooda ku aragto imika kaas waa weyn baro maanta waa title-lada isna kaasaa lagu qoraa waa malaayiin fonts waa malaayiin way ku anfici doonaan adiga hadda si aad doontid u isticmaalaysaa. kaas isticmaalaa waa kii bahalkii mush way hibriid baan malaynaya mise waa kenyaadkii etoobiyaankii ma garanayo, laakiin waa fontiska fara badan oo ku anfici doona. jaamaca kaas waa kii saxiix u eegyahay mid yar saxiix u eegyahay markaa kaas markaa waa mid ku anfici doona adiga haddaad la soo degtid. markaas saasaa loo isticmaalayaa walaal. maanta horta ugu horreyn dadku cusubtahay kanaalkan subscribe dheh, calaamada gambadheel kala furo, fiidiyowgana like saar haddaad ka heshay, asxaabtaadana u sii share garee. aad iyo aad baanad u mahadsan tahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.